يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على الرسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الأخيار الأماجد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. walaalayaal khudbaddii tan ka horreysa waxaynu kaga soo hadalnay dilka qofka muslimka ah xaaraantinimadiisa iyo xadgudubka xagga nafta. waxaynu raacinaynaa halkana xadgudubka xagga cirdiga iyo sharafta. waa arrin mudan inaynu isku waaninaynu aada isugu celcelinno. dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay u haystaan in dadka lagu xadgudbo naftooda iyo maalkooda wax weyn inay tahay. waa wax weyn, laakiin waxay wax yar u haystaan dadka sharaftooda in lagu xadgudbo oo meel laga dhaco. taasina aad bay maanta inoola sahlan tahay. sidaa daraaddeed mowqifka sharcigu halka uu sharcigu ka taagan yahay, daliilada taa ka digaya ku soo arooray, iyo dadkii wanaagsanaayo salafuna saalix ee aynu ku dayan lahayn dhaqankoodu siduu ahaa baynu baraarujin insha allah. marka hore, nusuus badan baa ku soo aroortay oo ka digaysa qofku inaanu ku xadgudbin sharafta dadka, ama carabkiisa aanu sii dayn, ama ilaalinta carabkaba. carabka aynu ogsoonnahay oo ka mida nicmooyinka ilaahay uu bixiyey subxaanahu wa tacaala kuwa u waaweyn. ilaahayna uu inoogu manno sheegtay: alam najcal lahu caynayni wa lisaanan wa shafatayn. miyaanaan siinin baa ilaahay u yihi carab iyo laba debnood iyo laba indhood. bal waxaad ka warantaa qofka hadalkuu iska taagay ee doonaya inuu wax cabiro ee waxba kuu sheegi kari laha, carabkii iyo hadalkii oo ka xidhmay daraaddeed. bal waxaad sawirataa qofka waxba dhadhamin kari laha, macaan iyo qaraadh iyo dhanaan nicmadaad adigu haysato. kullu haadihi nicam fi lisaan, nicmooyinkaas oo dhan carabkaa ilaahay inoogu manno sheeganayo ayaa ay ku jiraan. laakinahu saqiiru lxajmi kabiiru ljurm. carabka xajmigiisa iyo miisaankiisu waa yari, dembigiisuna wuu weyn. dembi weyn iyo ajri weyniba isagu ka yimaadaa. idan markaa arrinkaynu aada u adkaynaynaa, sida diinteennu ay nagu waaninayso ilaalinta carabka weyn. ugu horreyn waa inaynu dareenno waxaynu ku dhawaaqay inaynu ku hadlaynaa habeen iyo maalinba inuu yahay ilaahay agtiisa wax qoran, maalin maalmaha ka midana lagu soo bandhigi doono. maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid. waa nusuustii aynu akhriyaynaa, daliiladii innagayna khuseynaya ilaahay nagula hadlayay, rasuulku nagula hadlayay sala allahu calayhi wasalam. qofku waxa uu ku hadlayo oo dhan malaa'ig baa u diyaara. raqiibun catiid waa malag ilaashanaya intaa oo tirsanaya. adigu haddaad wax kale ka shaqaynaysa, isagana shaqadiisu waxa kaa soo baxayuu qoraya. ilaahay waxa uu tilmaamay ka ku guuldarraysta waxa uu ku hadlayo halaagga uu leeyahay: waylun likulli humazatin lumaza. halaag waxaa le baa ilaahay qofka dadka isha ka xamanaya ee afka ka xamanaya. hamaazin mashaa'in binamiimin mannaacin lilkhayr. hamaazin mashaa'in binamiim waa qof dadka xamanaya iskuna diraya. waxau ilaahay ka digay subxaanahu wa tacaala in la isku dheeldheelo iyadoo la adeegsanaya carabkaa nicmada weyna. raggu uga digay, dumarku uga digay. waa ceebaynta, waa cambaaraynta, waa xaqiraadda, waa xumaynta. yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qowmun min qowm casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaaءun min nisaaءin casaa an yakuna khayran minhun walaa talmisuu anfusakum walaa tanaabazuu bilalqaab. suuradda aadaabta iyo akhlaaqda badan ka warramaysa suurat lxujuraat, carabkaa waxaynu ka sii daynaynaa buu ilaahay ka digaya subxaanahu wa tacaala. nabiyullaahi moxamed ummaddu waaniyey, asxaabtu waaniyey, waana dheer bay ahayd oo wax sheegmo badani ay ku jirto. xadiidka akhirkiisa waxaa ku sugnaa
markii ay asxaabtu ka yaabeen siduu nabigu wax ugu sheegay baa waxay yiraahdeen hal yakubu naas miyana loo qabanaya carabka waxaan ku oranayna markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam hal yakubu naas fi naari illa hasaidu alsinati hal yakubu naas fi naar ala wujuhihim illa hasaidu alsinati dadka waxa afkan binaarta ugu ridaya oo sababa waa carabkaasi wuxuu jaray nabigu calayhi salaatu wasalaam ma uu xagaafay xumaanaha qofku ku geystay kaarka jannada waa la diyaar rasuulku sallallahu alayhi wasallam aynu ku gali lahay jannada hadii aynu afkeena haysana iyo ibteena afka carabkaas iyo ibtaa hoose aynu xaaraanta ka ilaalino man yadmanu li ma bayna lahyayhi wama bayna fakhidayhi admanu lahu aljanna ala macna alhadith wiyaahina uu baafinaya nabi kuma haysanaya buu leeyahay afkiisa carabka xaaraanta ka haynaya ibtiisana sinada ka haynaya anuguna jannada diyaar u lahay buu rasuulku leeyahay ilaahay baa deesaawiya wahay oo sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabigii Sufyaan ibn Abdullah al-Thaqafi kelmadda ama su'aal muhiim ah rasuulka inoo weydiiyay sallallahu alayhi wasallam waxa uu ma huwa akhwafu ma takhafu alay rasuulullah waxa ii sheegtay shaygaad iigu cabsi badan yaan aad isaga ilaaliyo marka rasuulku sallallahu alayhi wasallam carabka buu leeyahay carab dad cadawgaad iska ilaalinaysa carabka way ku xisaabta man kana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut waxaad ku badbaadaysaa hadalka intaanad oranin ka hor inaad balmiisaanto afar qaybood waa iyama ma sharba ma khayrba ma bilaa macna ama labadu isugu jiraan hadalku intaa kama baxo ama waa shar ama waa khayr ama labadu isugu jiraan ama midnaba ma aha waa bilaa macna saddex iskaga tag wixii shara iyo wixii shar iyo khayr isugu jira macnaa de kullu uu isku walaaqay oo waa amal xun buu isu rogayaa marka dambe iyo wixii bilaa macna ah wixii khayr wanaagsan oo baad marka oranaysa falyaqul khayran aw liyasmut wa ka rasuulku inoo tilmaamay sallallahu alayhi wasallam qofka ilaahay iyo aakhira rumeeya ama iska aamus ama shay khayraha ku dhawaaqa imaam an-Nawawi rahimahullah marka uu sharxay wuxuu leeyahay taas waxay ku suura galaysaa qofku intaanu hadal horta inuu miisaamo wuxuu oran doono oo uu ka fiirsado iska daldalmin oo afka una aanu sii daynin waxa nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa iyo ehelkiisaba uga digi jiray waxa xanta la yiraahdo iyo carabkoo la sii daayo huma dul qaadan jirin qofka ugama aamusi jirin ugama mujaamalayn jirin laakiin halkaas ku joojin jiray waa mid mudan inaynu inaguna kaga dayana rasuulka sallallahu alayhi wasallam xaasaskiisa mid kamida baa waxay leedahay xasbuka min safiya annaha kada dangaladeedii kale ayaa wax ka sheegtay waxay tiri waxa safiya kaaga filan nabi allow deena caynkaata qolada taariikhdu waxay xusaan waxay tiri way gaaban intaas u bayt imise erayo ka daran bay oranayaan rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu joojiyo waxa uu kelmadaasi hadii badda lagu dari la way tarixi lahayd ma urteeda ma dhiigeeda waxay tahayba way bedeli lahayd qarada ay leedahay macnaa waad soo goosato hilibkeedii baad cuntay weeye macnaha rasuulku sallallahu alayhi wasallam ummadda markii uu dardaarayay ugana digay dulmiga ay galayaan wuxuu kala hadlay ma ahayn dhiiga iyo maalka la galayo qura cirdiga iyo sharaftana uu ka hadlay inna dimaakum wa amwaalakum wa a'raadakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hada fi sharikum hada fi baladikum hada cirdiga iyo sharafta ayuu nabigu aad uga hadlay calayhi salaatu wasalaam hadii wax fara badan oo amal ah aynu sameynayno laakiin ummadda aynu carabka aynu la dhacayno aynu ku cunayno aynu ka deyn weyno waxeenaasi waxay noqonayaan waxaan waxba ka jirin oo foosto gun labaynu dhaaminayna ninbaa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam waa tusaale cajiiba laba dumar buu uga warbixiyay waxa uu leeyahay heblaayo soom badan iyo salaad badan iyo sadaqo badan way bixisaa laakinaha tu'di jaaraha bilisaaniha laakiin jaarka bay ku dhib badan tahay oo carabkeeda laga fadhiilay hiya fi naar buu nabigu calayhi salaatu wasalaam taa waxay qabanaysaa waxba kama jireen naarta galaysa heblaayana soom badan iyo salaad badan ma sameysee laakiin de jaarka ka nabad galay hiya fil janna buu nabigu calayhi salaatu wasalaam jannada galaysa xadiisku waa saxiix marka waxa muhiim ah waxaynu qabanaynaa cibaadaadka ah intaynu eegayna in ka badan inaynu eegno maxay ku nabad galaysaa cibaadada aynu sameynayno sidaa daraadeed baa salafkeeni ama dadkii wanaagsanaa tusaalaha inoo ahaynu ku dayanaynay waxyaabaha ay aad u ilaalin jireen carabka kamid ahaa iyo hadalka iyo kelmadda soo baxaysa siyaabaha ay isu ilaalin jireen waxaa ka mid ah dadka had iyo jeer dhimbiiluhu ka duulayaan iska kadeedan
markay ku yimaadaan xanta iyo beenta iyo balaayooyinka kula galaya way ka warwareegi jireen inay la kulmaan faqiihi weynaa Ibraahim an-Nakhaci ayaa wuxuu sheegayaa inantii adoontiisa ahayd ee guriga u ilaalinaysa dadka had iyo jeer qofka kolba sugaya u sheegaysa marka wuxuu leeyahay dadka uu karaahiyeysanaya xumaanta uu ka filaya inay la soo qaadi karaan ayuu u sheego wuxuu markuu hebelkaas ku yimaado waxa tidhaahdaa udlubhu fi lmasjid ولا تقل له ليس هنا لئلا تكون كذبا مساجد كرادي ده حاجي ما شيخي ما مساجد كرادي وكبادي دون دم لكن هوراني halkan ma joogo ila waan joogaa been bay noqonaysa marka waa tawriyo waa dariiqo uu kaga dabaalanaya qofka dambiga u soo jeedi kara waxyaabaha iskaga ilaalin jireen waxa kamid ah carab waxa had iyo jeer ay koobi jireen hadalkooda aamuskana way ku dadaali jireen iyo urursanaanta marka hadalkan faraha badan aynu daldalayna aynu ku xiiqayno may lahayn waxa uu lahaa Xasan ibn Bashaar imaamka la oran jiray منذ 30 sana ما تكلمت بكلمة أحتاج أن أعتذر منها صدق كسنادود u dambeeyay igamay soo bixin kelmad kalifi kartayna ka cudur daarto oo raada raaliga ahaada way kelmadan miisaamun baa ku dhaqaaqi jiray waxba dhibayga ma iman jirin inagana waa adiga arkay inuu hadalkeeni markuu batay qofkii dhacdhiciisi uu batay lagu qabsado maanta wuxuu leeyahay si xun u sheeg sixir ka daran sida uma jeedin hadalku waa margid si qalad ay hadalkayga u fasireen marka la raaliga ahaada waxa soo dhan waxa ka soo yeersiinaya waxa weeye dadkii hadalkii ay oranayeen aan ka fiirsanayn way tirin jireen marka kelmadahooda mid qura ma aha waa rag badan baa maqaaladaha lahaa Bishr ibn Mansur imaamka la oran jirayna waxa uu lahaa law aradtu an ukhbirakum bikulli shay'in takallamtu bihi al-yawma la fa'altu sagoo dadka ku waaninaya hadal yaraanta maanta dhan wixii aan ku hadlayay haddaan is-idhaahdo dib u soo tirin waan idin tirin karayaa buu lahaa bal inagu miyaynu tirin karnaa 12 saacadood ku soo dhaafay waxad waday wax la garan karaba maaha tiradiisa fadhiga quraynta sheegtay in ma garan kartid taas macnaha waxay sheegaysaa in aynaan xukumin afkeena waxa ka soo baxaya waxay ahaayeen dad u arkayay hadiya jeer qofka iyaga xamanaya ama xumaynaya inay ka faa'iideysanayeen haddii iyagu ay xamtaanna iyaga laga faa'iideysanayo marka cid kale ha ku dhibta oo aad ka macaashida adigu dadku iyaga ka macaashin bay ahaayeen oo diintoodii ajrigooda ilaashanayeen in ka badan adduunka intaynu ilaashano inagu فكانوا يرون الغيبة غنيمة هدي عيد حمته وحبي وركيين بوحو يجا ونكسن به تصاليال الدين السوق هذا إنه فضيل بن عياض إمام كالورنج عابد كهاب إن كيري إن فلانا يغتابني فقال له قد جلب لك الخير جلبا نبا يحنتاك ورنبور دينك كحنت خير بكو سواري ديبو خيرانة سيد بيركوها شان ديو كوشق يبوده الله يابي imaamka la oran jiray Cabdurrahmaan ibn Mahdi ayaa wuxuu yiri hadii aanan karaahiyeysanaynin in Ilaahay la caasiyo ila wax laga raali noqdo ma aha in Ilaahay la caasiyo casrigan dadka nool oo dhami inay aniga i xantaan baan jeclaysan lahaa waayo maxaa ka wanaag badan xasanatan tajiduha fi sahifatika yawm al-qiyama lam ta'malha wa lam ta'lam biha maxaa ka wanaagsan xaashiyahaaga iyo kitaabkaaga oo maalinta qiyaamaha uu ka soo baxo amal aanad samaynin adiguna aanad ogeyn isagoo ku burburan oo ku badan oo baa lagu soo hordhigo la yiri dadkii ku xamanaya ku xumeynaya lagaaga soo guray maalinta taasaba ugu farxad badan buu waxay ahaayeen kuwo intaasiiba dhaafo qofka had iyo jeer iyaga dhiba may dhibi jireen way ka gaabsan jireen bal waxay u arkayeen inuu ajri siiyay mudan in laga abaal mariyo Hasan al-Basri rahimahullah taabiciga jaliilka ayaa la hebel baa ku xanto xantaada badiya oo fiirsaday arrintii inay jirtaabo ogaaday
wuxuu diray madiibad weyno timira waliba timirtan fiican rudabka xasiida wuxuu u sheega anigu waxaan uga cudur daaranayaa waxa uu isiiyay ya waxaan siiyay inaana isu dhignin isagu ajrigiisii buu siiyay laakiin anigu adduun yar oo kooban baan siiyay hayga raali haaday inta uu sheega waayuna yafcalu dhalik keedabay taasi ka suuro galaysa isaguna gambarka unbu ku soo fadhiisanaya intii leegna waa caytamaya qofkaas wuxuu arkayaa markaa inuu ka faa'iideystay oo runtii isaga loo adeegay oo loo shaqeeyay ninbaa wuxuu la hadlay abu xaniife saaxiibkii oo wuxuu yidhi abu xaniife cid kala daaya cadowgiisu marka ay xantaan ama xumeeyaan uma jawaabo abu xaniife uu ka caqli badan yahay buu xasanaadkiisa inuu cid amaahiyo ama uu siiyo waxay arkayaan waxa la yiraahdo carabka oo la sii daayo inuu ur leeyahay iyo arag xumo nin salafkii kamid ah saaxiibkii waxa uu ku yiri waqtigii rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa la dareemi jiray xanta urta ay leedahay iyo macsiyadu arag xumada ay leedahay iminka dadkii maxaa ku dhacay te waxa ku dhacay uu sankii baa u buuxsamayo urtiisii baa ka badato markii xantoodii iyo xumaantoodii ay badatay urintii ay urin lahaayeen baa ka baday sida dadka dabaaqiinta ah oo kale dabaaq waxa weeye qofka bahalkan haraga ah marka la xoorinayo waata la qurmiyo si dhagortu ay uga baxdo marka qofka isagu urtaa iskaga dhaxnoolo shaqada wada waxna uu iskaga cunaa dhexdiisa shaqadiisa waxna uu iskaga cabaa dadkaasan ka haystana waxba ma dareemo way sankiisii ku badatay uu la qabsaday marka sidaas oo kale inuu noqonay laakiin dadkii saalixiinta ahaa nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa iyo ummadii wanaagsanay iyaga waxana ku yaraayo uu soo urayo de waa ka xaaskiisa kule kelmadaadaas waxbay bedeshay jooji waxyaabaha ay ku yareyn jireen waxa kamid ahaa arrimahan ay kaga hortagi jireen carabka lagu hakin jiray qofka isticmaalaya arrimahan ama wax dacaadeynaya ama dadka warka u kala qaadaya looma tixgelin inuu yahay dhageyste mudan in mushaar la siiyo ama la karaameeyo la soo dhaweeyo laakiin way joojin jireen hatta madaxdu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah madaxweynii muslimiinta caadilka ahaa ayaa nin baa u yimid oo wuxuu ninka hebel la yiraahdo afka kaama dhigo waa ku xamanaya oo marka wuxuu waxaad yeelaysaa saddex arrimood baad kala dooranaysaa soo fadhiiso in aynu arrinka ka daba tagno la cadeeyo in arrinka markaynu baaritaan ku sameeyno uu been noqdo marka waxaad soo gali doontaa aayada ilaahay uu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayyanu faasiq baad noqon min ahli hadhihi al-aaya kamid noqon haddii markaynu daba gala arrintaasi ay run noqotana waxaad soo gali doontaa min ahli hadhihi al-aaya hamaazin mashaa'in binamimin manna'in lil khayr ka ilaahay uu ku ceebay inuu dadka isku diro arrinta saddexaadna waxa weeye in la iska ka cafiyo oo cafis lagu fidiyo ceebtana dib aanad ugu noqon isku dirka bulshada iyo madaxda iyo raciyada marka wuxuu yiri al-afwa ya amiir al-mu'minin waxba baaritaan ha galine dib ugu noqon maaye cafiska ila ogo marka arrimahaas ay ku yareyn jireen idan marka walaalayaal waxaanu leenahay baasha xanta layda iyo ceebaynta iyo cayda oo cid ka nabad gashaaba ay yar tahay oo sidii gacan ku dhigli aynu uga soo waramayna carab ku dhigla aad u batay carab ku dhigla inuu badanay ilaa qofkii waad cunaysaa waad hafaysaa marka cambaarayseed ceebayseed ku xadgudubta miskiinka ka maqan marka carab ku dhigla inaynu iska dayno sidaynu nacayno gacan ku dhiglaha inuu nacno taynu isku waaninayna waa taas nin baa yiri qorraxdu kulula kii kalena wuxuu yiri xaynta xageeda u dareertay maxaad u malayn iyadoo carabku sii dhib badnaa maxaad u malaynaysaa iyadoo iclaam iyo wax lagu baahiyo loo helayna waa musiibo aad iyo aad u weyn oo qofku adduun iyo aakhiraba uu ka murugoon doono carabkiisa markuu sii daayo ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ceebteennana asturo camalkeennana wanaajiyo اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة